السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا أصحابتا جنالكينا وبلاشي محلك السو إذن له وإذن سلامي أصحابتي إذا ميل والبعد أدونك كجوكتين وحا إذن لا يهي عمر داري عافمات كوارا إن شاء الله ما أنت محاربا إنا كهدله سدح شيء إن شاء الله دو إلهي كرالي النقضة أصحابتينا أو مهمة سدح داس مهمة يكوطهي saddexdaas aan rabno maanta inaan ka hadalno waa saddex noloshaada cadow ku ah oo haddii aad ka hartane aad gaaraysid hadafka nolosha aad ka leedahay hadduu ilaahay ka raali noqdo midka koowaad haddaan ku bilowno waxay tahay haddii aad ahayd horay dadka qanciyo oo jecel inuu bini'aadanka mar walba qanciyo uu rabo maaragtay inuu wax walba ka jaahil bixiyo haddii ay tahay colaad haddii ay tahay wax waliba oo jecel inuu qofka qanciyo haddaa tahay haddaba ka tanasul bini'aadanku ma qanco bini'aadana qancinaa haddaa dhahdid adigaa noloshaada ku burburaysaa mana gaaraysid hadafka nolosha aa ka laheyd waa xaqiiq bini'aadanku ma qanco waayo maanta dhan qofan qancinaa haddaa dhahdid oo ka daba orodid oo dhahdid warsaan waa lagama yaabo inuu qanco qofkaas marna ma qancaayo adi unbaa daalayo kan ugu fiican oo ugu roon oo adiga xushmad yar ku haayo wuxuu ku leeyahay waa kaa qanacsanahay oo haddana aan waxba ka jirin marka waqtigaaga ha ku lumin inaa qof bini'aadana aa qancisid qofka sida seriouska uga hadal sida wax ugu jiraan u sheeg hadduu kaa qanco waa kaas hadduusa kaa qancina hore uga soco haba ku lumin waqtigaaga inaad qancisid waayo ma qancaayo qofka markuu qancaya wax loo sheegaa moogta bini'aadanka ma qanco taadaa ku lumayso waqtigaagaa gelisay enerjiga kaaga baxay waxaa kaaga baxay waqtigaagi dhammaay qanacsanaana ma jirto ma kaa qancaayo maxaa ka istafiigta marka adigu unbaa noloshaada ku luntay ha qancin qofka sida seriouska uga hadal hadduu ku aamino arag hadduusu ka aaminin hore uga soco ana taas ayda kula talin lahaa tan labaad waxay tahay ha aaminin dadka waxay adi kaa aaminsan yihiin ha aaminin adiga is aamin adiga idaawanayo adiga naftaada is aamin nafsadaada waxaad adiga ka aaminto uunbaa tahay waxaad adiga nafsadaada ay kaa aaminto uunbaa tahay aadanaha waxa ay kaa aaminaan waxba kuuma galo wax uu kuu galo ma lahan inuu aadano ku aamino uu aadanaha maaragtay uu ku ammaano uu aadanaha maaragtay uu sare kuu qaado biri dadkan sare kuu qaadano dhulkana waa lagu dhigi karaa hadda ogow laakiin naftaada markaad aamintid ood maaragtay aad qof ayada isku kalsoon aad noqotid cidna ugama baahnid aaminaad dadka waxayse iga aaminsan yihiin dadka saan waay wax walba ha u samaynayna dadka wax fiican kaa aaminaan naftaada waxay kaa aaminto uun baatay markaa nafsadaada aa ka aamintid inaad qof horuu socod le aad tahay markaad nafsadaada aa ka aamintid qof wax qabsanaya inaad tahay markaad nafsadaada ka aamintid inaad tahay qof maaragtay juhdi noloshiisa gelinooyo hore u socod leh intaasba inaad tahay markaa ka aamintid waxaa noqonaysaa qof maaragtay isku kalsoon oo noloshiisa hore u wato bini'aadanka markuu maanta ku ammaano oo ku dhaho waaw qofkan waa qof fiican waa qof wax qabsanayo waa qof horumar leh waa qof edeb leh waa qof anshax leh waa qof afgaaban waa qof saana waa qof kana isla ogow afkii shalay lagugu ammaanaa haddana maantana lagugu cayn karaa dhulkana lagu dhigi karaa adi maalin kasta marka wixii dadku kaa aaminaan haddaa aamintid adi shimee wax qabsanay haddii lagu ammaanay iyo haddaan lagu ammaaninba wixii adi aad tahay iska aamin waxaa adi taha uun baatay naftaada waxaad ka aamintid aatay haddaa naftaada ka aamintid inaad tahay qof cidina aysan ka horreynin aqli iyo maskax iyo wanaag intuba ilaahay ku manhaystay cid waxay uga baahan tahayna aan jirin haddaa tahay haddaa iska aamintid hadday kumanaan kun ay kaa aaminaan wax xun waxba kuguma samayn karaan kumanaan kun hadday wax fiican ay kaa aaminaanne waxba kuma soo kordhi karaan taasaa kuu sheegaya tan saddexaadna waxay tahay ha noqon dadka qabqabsiga badan leh oo yaa ila hadle maxaa layga sheegay intaa la maray yaa magacayga sheegaya maxaa lay dhaha igaral hotel ay soo galay marka haddaa noqotid dadka qabsiga badan leh oo aad dhahdid yaa wax iga sheegay yaa waxay dhahay maxay ahayd maxaa layga sheegay maanta inta maxaa ka dhacay yaa waxay dhihi karo yaa yeeli karo
haddaa maanta dhan haddii kumanaan ku dheh wax kaa sheegto haddaa maanta keliya u taagnaatid ka waran anigaa wax idhahay yaa wax iga sheegay yaa inta igala galay intaan ka baxay heblow muxuu idhahay aad dariiqa u taagnaatid oo maanta dhan aad noqotid qof maaragta ka waran qabqabsi badan oo wax yar haddii la dhaho xitaa aan u dulqaadan karin oo inuu soo caddeeyo jecel oo inuu raadiyo jecel oo inuu maaragta waqti geliyo jecel haddaa noqotid taasna waxay kuu tahay dib u dhac haddaad ahayd dadka qabsiga badan leh oo wax yar marka laga sheega aan u dulqaadan karin oo haw intuu dhaho ha laygu soo caddeeyo heblaayo heblow igu caddeey heblaayo awday meeshan ku sheegaan rabaa meesha la igaga sheegaan rabaa intaan ka baxay maxaa ani galabsada maxaa sameeyey oo boodo haddaa tahay haddaa kuu sheegaya qaqabsi ka har dushaada qofkii wax ka sheego mar waliba adigaa ka sarreeyo walow bili-aadanka ay u maleeyaan qofka markuu wax laga sheego hadduusan wax qabsanaynin uu maaragta uusan qofkan qabsanaynin uusan raadinaynin uusan danaynaynin inuu maaragta uu qof ahbalo uu yahay uu waxba ogeyn ama uu baqaayo kale inuu bili-aadanka inuu aaminsan yahay amba waa dareema ma fahantiin marka haddaadan qofka qabsanaynin ood ka socotid oo dantaada ka raacatid oo intaad saas u fiirisid aad ka gudubtid oo juhdigaaga aad gelisid hadafkii nolosha aa ka laheed haddii aa nooshahay inaa gaarta aa rabtay horumarkeeda waa gaaraysaa dhabarkaaga qof ka hadlay sembere adigaa ka guulaysta soo ma ogid wax dhabarkaaga adig ka hadlay oon bareer cad adig kuugu imaanin adaa ka sarreeyo hubaal aamintaas adigaa ka sarreeyo qofka oo geesigaa waxaa lagu yaqaanaa qof wejigaaga intuu soo istaago wuxuu ku dhihi rabo ku dhahay ama shar ha kaala kulmo ama kheyr ha kaala kulmo laakiin gadaashaada qof ka hadla ogow adigaa ka sarreeyo haddii aad ahayd qof haddii wax yar haddii laga sheego inuu boodo jecel oo maxaa la dhahay animaa waxaas dhahay animaa heblaayamaa ani waxaas iga sheegi karto ayadaaba 10 iga daranay igey iyeel kun iyo kumanaanaan 9 aragnaahan ka soconaa adigadaan idaawanaayo haddaa tahay dadka qaqabsado oo mar waliba jecel inuu maaragtay boodo oo qayliyo oo danihiisa iyo waqtigiisa ku lumiyo inuu meel istaag iyo maxaa heblaayo la iga sheegay iyo shimeen dhaha iyo heblaayama ani caay karta iyo haddaa ahayd no kahar waxay dib u dhigaysaa adiga hadafkaa lahayd waxay dib u dhigaysaa waqtigaaga quruxda qaaliga ahay ee kaa beel daraynaysaa enerjiyaa kaaga baxay waqtiyaa kaaga baxay waxba maadan ka istafiigin waxaa noqotay qof maaragtay naftiisiiba aana ku kalsooneen oo 9ka maaragtay ku nool maxaa la yiri maxaa la iga sheegay maxaasaana horaa looga socdaa labadii indhooda intaa laga fiiriyo wax walboo dhacayo aa laga socdaa ahbal ma tihid hore haddaa uga socotay ahbal inaad tahay aysan kula noqonin qof maaragtay oo damiir lahayn inaad tahay oo damiir dhan ku jirin inaad tahay ha iska aaminin qof damiir lahaa tahay qof aqli lahaa tahay qof ragnimo iyo kalsooni intaba ku jirtaa tahay kalsoonida aad ku dhaaftay adigoo u jeedo ragnimada aad ku dhaaftay adigoo u jeedaa leedahay taasaa kugu jirto taasaadna wax walba ku gaareen hadduu rabbi ka raali noqdo ma fahantay taas aa ku jirto marka ha noqon inaad waqtigaaga aa ku lumisid ruux binannaas ah oo adiga sidaada oo kalaa ee dhabarkaaga ka hadlay raadintiisa ha ku lumina waqtigaaga waa qaali noloshaada waa qaali adiga waxaad ka aaminta baate adiga naftaada waxaad ka aaminta baate marka asxaabteena insha allah intaasaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka hadduu rabbi ka raali noqdo waxyaaba badan waa idiin soo wadaa hadduu ilaahay ka raali noqdo kunki sabskaraaba kusii soconaa waa ujeediin waa ku mahadsantihiin sidaa mar walba maaragta ay ila socotiin dhag ha lagu soo siiyay sabskaraabka kun iyo kumanaan inaa gaarsiisiina inta idinkaga fadhiyaan insha allah anigana nadaafada dee noqoto guri hagaajis cunto karis wax walbo oo aan sameynayo oo maaragta dhanka nadaafada dhanka cunto kariska dhanka maaragta sheekooyin wax walbo idiin soo duumaa insha allah hadduu ilaahay ka raali noqdo waxaan idin leeyahay meel walbo aad joogtiin cimri iyo caafimaad insha allah ilaahay ha idin siiyo bye bye